marka xilliga qadadu uu gaadho albaabka ayay furi jirtay inantaa yari dhagaxii cuntada la soo saari jirayna way sii eegi jirtay albaabka u haafuran ayay taagnaan jirtay albaabka iyadoo sii eegaysa dhagaxa xaafadan ay jaarka yihiin markay cuntada soo qaadaan ama ay soo qaadaan ay dhagaxa ku shubaan ayay inantaa yar iyo riyuhu ayay u baratami jireen cuntada markaasay cuntada qaadi jirtay carruurtii ay walaalaha ahaayeen ee ka yaraa ayay u geyn jirtay saddex faa'iido oo qura ayaan jecelahay inaan idinla wadaago saddex faa'iido oo qura ayaan jecelahay inaan idinla wadaago oo ku saabsan sadaqada waxyaabaha laga helo iyo faa'iidada ay leedahay ereyga sadaqa maadada magacani uu ka yimid waa saad iyo daal iyo qaaf weeyaan waa min sidqi sidqigu waa runta sadaqada waxa bixiya qof ilaahay iyo aakhira rumaysan waayo waxaan uu u baahan yahay wuu og yahay inuu u baahan yahay haddana wuu isdhaafinayaa wuxuu og yahay xilli uu uga baahi badan yahay inay u iman doonto ayuu og yahay kolkaa waa qof waxay ka markhaati kacaysaa ayay shaahid ka tahay qofkani qof iimaan le inuu yahay qofka sadaqada la baxaa waa qof iimaan le sadaqada labaa loo qaybiyaa ama hibada waxa loo yaqaan labaa loo qaybiyaa hiba daatu thawaab wa hiba ghayru daati thawaab hiba daatu thawaab ma aha tanan ka hadlayno waatay gaaladu bixiyaan iyada ujeeddo adduunye abaa lagu rabaa dan gaara oo adduun abaa lagu rabaa maslaxad la dhaafsanayaa lagu rabaa fuqahadu markay ka hadlayaan waaba beec bay yidhaahdeen waaba beecuun ninkaa kule waxbaan ku siiyey waxba kuma siinine waxbuu kaa iibsaday laga yaabaa inaad adigu welibana dulman tahay oo waxa uu kaa qaadanaya uu ka badan yahay walaalayaal waxaan jeclaysanayaa dhowr faa'iido oo sadaqadu ay leedahay marna iyadoo qura ayaa leh marna acmaal kale marka lagu qabto ayay yeelanaysaa faa'iidooyinka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dhowr arrimood qof kuma kulmaan maalin qura haddayse ku kulmaan qofkaasi waa qof ahlu janno ah waa qof ahlu janno ah oo dhulka dul lugaynaya waad samayn kartaa isagu ma ogin dhowrka arrimood inaad adigu kulmiso oo hal maalin aad wada samayso waa arrin aad samayn karto rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidu abi hurayra muxuu yidhi man asbaxa minkum alyawma saa'ima maanta yaa sooman buu yidhi abi bakar baa gacanta taagay oo aniga yidhi waa kow rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman tabica minkum alyawma janaazatan mayd la aasaya maanta yaa soo aasay oo ka qayb qaatay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam abi bakar baa haddana gacanta taagay oo aniga yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddana faman caada minkum alyawma mariidan qof xanuunsanaya yaa buuqday oo iska warran soo yidhi maanta abi bakar baa markii saddexaadna gacanta taagay oo aniga yidhi yaa rasuul allah muxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa sadaqa yaa wax la baxay buu yidhi oo wax bixiyey abi bakar baa haddana gacanta taagay oo yidhi aniga yaa rasuul allah rasuulku wuxuu yidhi majtamacat fi imri'in ilaa dakhala aljanna rawaahu muslim qof kuma kulmaan umuurtaasi maalin qura haddii uu laakiin qof ay maalin ku kulmaan qofkaasi waa qof ahlu janno ah waa qof ahlu janno waa sadaqadii iyo soonkii iyo janaazadii iyo qofka xanuunsanaya la buuqanay haddii maalin aad wada samayso min ahli aljanna biidni illah ilaahay dartiina ay kaa tahay iyo niyo wanaagsan min ahli aljanna walaalayaal waa faa'iido ay sadaqadu leedahay marka camal kale loo geeyo waxaynu dareemaynaa marwaxadahaasan hadda wada shidannay oo kulayl fadhihi mayno baan odhanaynaa iyo daaqadahaas aynoo wada furan mukayafyadaasaa la shitaa dhulkan xeebaha ah iyo khaliijka ama haddaad tagto jabuutiba haddaad tagto ninka marka la doonayo in la cadaabo korontadaa laga jaraa baa la yidhaahdaa walaalayaal mukayafyaa ku xidhan waa da'aysaa waxaad arkaysaa qof seexa isleh oo firaashkiisa qoynaya oo firaashkii uu biyaha ku shubtay ana ii soo martay firaashkii uu biyaha ku shubay dhididkiisii kala garan la haddana mukayafyadaasaa la wada shitaa
وأقول كان يعير كان بلارنا شنطة بقول إيه سنة دحلو الله سبحانه أيو كلايل كاسي كتيرة مركب قبرك اللي نجيو إيه الكير اللي نقول ضبالا كلايل انتهى لإجبا ولا على هالك كتيرة ميان جران كرنا نبي جل وحشة عليه الصلاة والسلام صدقة الله بحينا إن مكيف يمر وحظه كلا إنه نقول يسق قبورته كلايل كقبورته أي إذا كقبورتين يسابوا رسولك عليه الصلاة والسلام وروح الله بحا قبورته كلايل كيجا أي صدقة إذا كقبورتين يساي رسول كأن أيها إن عليه الصلاة والسلام وعيكاد جنتها يا هذا بقى هذا إنه صدق الله بحنه مكيف بات سير دقتي قبر جاجي أيات إيه سيكو سيحرتي الله إنك أقبله وفائدة أي صدقة لا هيوي قضبك صدحات إيه صدقة أي لا هي ضدك حنون صنية أي اللي قدوية رسول كأن عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة دوية دتك نبكاء أو صدقة كدوية إمسك قصة يا الله أركي ضد أنت يهنتي الله بحين أما أي صدقة الله بحين حنون كوجي ميلو مريض اللواي ابن المبارك أو كلا قصة دي اللي جو الرميي نباوي متجلب كحنون أيوه نختار كستنا صوم مريض دعام باكده أي لقطة نختار كستنا من كسولته مي واللوجيو دعام كاسي دوجو تسوى اللواي دعام كيسيبا قبانيا أردولك قبانيا isaga loo keeno lagu yiri bal ka waran baa lagu yiri ninkan wuxuu yiri warniyo waxaad samaysaa sadaqa la bax sadaqadaaduna ha noqoto buu yiri dhul oo mana ah meel oo mana ah oo dadku ay biyo uga baahan yihiin biyo ay uga baahan yihiin ceel ka qod oo biyo ka soo saar ama biyo qabo oo dadka biyo u qabo ilaahay waxaan ka rajaynayaa buu yiri dheecaanka iyo biyaha ka socda inuu ilaahay ku joojin doono biyaha dadka ku sadaqaysanayso ninkii isaga ka warbixiyay wuu dhaqaaqayo meel oo mana abu ceel ka sameeyay wuxuu ceelkii markaan sameeyay ayuu ilaahay dheecaankii lugta iga socday iga joojiyay labada ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu kaga filaaday walaalayaal dad badan baynu ognahay biyuhu waa wax jaban qaali ma aha biyuhu haddana waxyaabaha ku jira ma maleynaysid marka aad u safrayso meel ama xeeb ah ama aad u safrayso meel dadka reemiyii ay ooman yihiin dhowr caagadood abo biyo ah oo qabow oo qaado oo dadka lugaynaya ee jidka maraya aad u tuurto wax loo dhigi kara ma aha xadiiskii saxiix ah muxuu rasuulku ku yiri calayhi salaatu wasalaam nin oo mano ceel galay oo biyo ka cabaya ayaa markuu soo baxay arkay ay harraa dartii dhulka leefleefaya ciidda qoyan buu dharganayay markaasuu yidhi rafaadkii aniga i gaadhay ayaa kan haysta ceelkiibuu mar labaad ku noqdo aygiibuu biyo u soo dhaamiyey laba arrimood eega walaalayaal wuxuu sadaqaysanayaa waa biyo welibana biyuhu lacag kuma joogaane soo dariddaa uu soo daray ceelkiibuu dul taagan yahay soo dariddaa uu soo daray ayuu isagu ficilkiisu ay tahay una kanada soo darsan karayn ama una gaari karaynin ka uu ku sadaqaysanayaa ma aha masaajid mana aha qof bani aadama waxa weeye xayawaanka waxyaabaha la yiraahdo todobada jeer iska maydha hadduu idin taabto ay buu ku sadaqaysanayaa ay magacaasaynu inagu ka didnaa ay buu ku sadaqaysanay waa biyo wuxuu bixinayaa lacag ma soo siina wuu soo saaray ku siinayaana waa ay markuu dhargay uu biyihii waraabiye ilaahay baa ninkii ku shukriyay oo u mahadnaqay dambigiisana dhaafay haddaad biyo sadaqaysato ilaahay agtiisa dembi dhaaf baad kaga heli kartaa bani aadam haddaad ku sadaqaysatana way ka sii xag jirtaa xayawaan bisad baad ku sadaqaysanaysaa oo ay baad ku sadaqaysanaysaa oo shimbiraad ku sadaqaysanaysaa dadna gaal iyo islaam waxa weey ka doontaad ku sadaqaysanaysaa gaal ka haraadan haddaad ku sadaqaysatay ilaahay ajri baad kaga heli ma aha muslimuun baad ku sadaqaysanad ajri kaga heli ma aha gaal iyo islaamka aad la baxdo ee ku sadaqaysatay ajri baad ka heli waayo rasuulkeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam wax kaste oo beer qoyan haddaad wax kula baxdo ilaahay baa ajri kaaga qoraya
waxaynu dareemaynaa qiso labaad oo islaayiga ku sugan ayaa jirta. qof dumar ayaa jiray oo kuwa jidhkooda ka ganacsada ah. dembi weyn bay gabadhaasi samaysay. zinadu iyadoo dembiya oo aad u weyn ayaa haddana waxaa la eegaa ragga iyo dumarka way kusii kala foolxun tahay baa la yidhaahdaa. ninkii waxba kama muuqanayaan, gabadhii waxbaa ka muuqanayo, ilmuu ilaahay ka beerayaayo, waxbaa meeshii imanaya. kolkaas zinada dumarku way ka khatar badan tahay baa la yidhaahdaa ta ragga. labaduba iyagoo aad iyo aad u xun ayaa haddana sii kala xag jiraan. gabadh haddaba jidhkeega ka ganacsan jirtay oo mar iyo laba aan ahayn ficilkan ay samaysay ee caado ay u tahay, shaqayba ka dhigatay. gabadhaasi ay harraadan ayay aragtay. aygii harraadanaa maxay samaysay? biyay siisay. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeegii buu dhaafay. kiisii ay ku jirtay iyo wixii ay dhex dabaalanaysay oo dhan ilaahay wuxuu kaga cafiyey, wuxuu rabbi kaga maydhay, wuxuu ilaahay kaga dhaafay aygaa ay waraabisay. waa sadaqadu qiimaha ay leedahay. sadaqadu qiimaha ay leedahay weeye. fawaa'ideeda waxaa ka mid a qofku hadduu sadaqo la baxo waxay ka difaacdaa miitata suu, si xunuma dhinto. dad baa jira iyagoo suuriyo ku jira dhinta. dad baa ku jira xaalado xunxun iyagoo ku sugan dhinta. sadaqadu waxay qofka ka ilaalisaa inuu si xun u dhinto. waa faa'iidooyinka ay sadaqadu leedahay ayay ka mid tahay. malagu markuu qofka u yimaad uu nafta ka qaadayo ee uu arko yaqiinta, markuu hubsado xaqiiqada, markuu qofku arko, markuu hantaatacayo muxuu ku hantaatacaa? muxuu yidhaahdaa? lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib, maxaan samayn lahaa buui? ma waan soomi lahaa buui, mise waan salaadi lahaa? fa asadaqa, sadaqaan la soo bixi lahaa buu odhanaya. marka qofka nafta laga qaadayo uu arko halkay xaaladdu ku sugan tahay inayna waxba gacani ugu jirin, wuxuu xasuusanayaa sadaqo uu la baxo. waa qiimaha ay sadaqadu leedahay weeye. mar walaalkaabay wax tar u tahay, marna adiga ayay aakhiradaadii wax tar u tahay, marna bulshadiibay isku xidhaysaayo bulshadiibaa bulsho isku xidhan noqonaysa. markuu kana wax bixiyo kana wax qaato, dadkii dad isku xidhan oo walaalaa oo iska warhaya ayay noqonayaan. hadduu kana dherge kana gaajoodo, waa midh laga naxo weeye. walaalayaal, waxaan ku soo gunaanadayaa arrinkaa sadaqadu waxyaabo badan buu ina xasuusinayaa ama ina dareensiinayaa. qisooyin mu'lima ayaa jira, waxyaabo aad looga argagaxa ayaa jira, waxyaabo laga naxo ayaa jira. magaaladeenna markaynu eegno, dadkii jaarkii way is-ilaaween, isma yaqaaniin, isma xaal oga. waxaa jira laba qof, laba guri oo jaar ah oo gidaan u dhaxeeyo, ayaa midna carruurtooda laga daweeyaa xanuunno dherega laga qaado, midna carruurtooda laga daweeyaa xanuunno gaajada laga qaado. waa jaar. labadan guri mid dab looma shido, midna cuntada wixii ugu macaanaa ayaa maalin kasta hamba lagu sheegaayo, ama xoolaha loo daadiyaa, ama meelaha qashinka lagu qubaa. ma islaamnima, ma jaarnima, ma ehelnima, ma xigtanima? intaasi waa maya. laa waalfalaa. ninbaa maalin qiso iiga warramay. khudbada hore inaan ku soo qaatay baa laga yaabaaye runtii aniga qalbigu ila gariiray. xaafad Hargeysa bay ka dhacday. xaafad aan inaga dheerayn bay ka dhacday. aan inaga dheerayn ayay ka dhacdo, bariga inaga xigtay noo dhow laakiin ayay ka dhacday. waxaa jiray guri ganjeel weyn oo ubad agoonihii ay ku jiraan. aabbahooduu dhintay oo carruur yaryar uu ka tegey. hantina ugama tegine gurigaasay ku jiraan uga tegey. dadkan meesha maraya gurigu qurux badanayo, albaabku weynayo, dadka halkan ku jira umbaa la odhanaya. laakiin maxay haystaan iyo duruuftooda dhaqaale waa maxay midna lama odhanayo. waxaa jiray qof ay jaar yihiin ama ay iska soo hor jeedaan oo iska ladan oon ogayn xaafadda xaaladdeeda. waxaa la ii sheegay carruurtaa inan baa ugu roonay. inantaa ugu roon
guriga ay jaarka yihiin markay cuntada soo daadinayaan hambadooda markay dibadda u soo saarayaan meel dhagaxa ayay saari jireen cuntada dhagax guriga ka horeeya ayay cuntada ka soo hadha saari jireen markaasoo adhigu ayuu cuni jiray uu iman jiray riyihii baa bartay caruurtan yaryar ee agoonta ah ee halkan ku xeraysan ee inantan yar ay ugu roon tahay waxay ogaatay xaafadan ay jaarka yihiin cuntadan ay soo daadinayaan waxay samaysay marka xilliga qadadu uu gaadho albaabka ayay furi jirtay inantaa yari dhagaxii cuntada la soo saari jirayna way sii eegi jirtay albaabka u haafuran ayay taagnaan jirtay albaabka iyadoo sii eegaysa dhagaxa xaafadan ay jaarka yihiin markay cuntada soo qaadaan ama ay soo qaadaan ay dhagaxa ku shubaan ayay inantaa yar iyo riyuhu ayay u beretami jireen cuntada markaasay cuntada qaadi jirtay caruurtii ay walaalaha ahaayeen ee ka yaraa ayay u geyn jirtay walaalayaal waa laba qoysoo jaara waa laba qoysoo laga yaaba ehelnimo inay u dheer tahay waa laba qoysay wada dhalasha xidhiidhisay waa laba qoysoo ehel isku ah haddana sidaa isku ah maalin maalmaha ka mid ayaa inantii shaqaalaha ahayd ee raashinka dhagaxa ku shubi jirtay ayaa iyadoo noqoninoon weli albaabkeegii gelinoon xidhin ayay riyihii soo yaaceen tii yarayd way ka xishoonaysay qoyskani inay ogaadaan ama ay arkaan tii yarayd way adkaysan kari weyday riyihii baa uga horreeya cuntadii way soo carartay oo riyihii bay la boobtay inantii shaqaalaha ahayd baa aragtay inanta ayaa qoyska warkoogii xaafadda u sheegtay oo tidhi xaafadan maad ka warqabtiin